بسم الله الرحمن الرحيم. maanta halkan waxaan kaga hadlaynaa ra'yiga dadweynaha anagoo ka hadlaynaa arrinkii shalay toliye kulankii barsaabka iyo golaha deegaanka. anigu waxaan leeyahay ahaan golaha deegaanka barsaabku erga ku saxsanaa maadaama ay noqdeen golaha deegaanku kuwo garawaayay shaqadii ummadan ay u soo idmatay. waxaad aragtaa bilicda magaaladu say tahay horumarka magaaladu wuxuu noqday kuwo ka liita sidii golihii deegaankii ka horreeyay oo haa markii ku wareejinayay horumarkii mid ka liita. waxaan kaloo aragnaa inay gudbin kari waayeen miisaaniyadii looga baxnaa iyadoo halkan lagu tilmaamo qoyska aqoonta ayay maanta golihii laga soo doorto oo soo dooranay iyo aqoonyahana ayaa laga leeyahay miisaaniyadii. marka barsaab uu saxsan yahay bayaan anu leeyahay golaha deegaankana waxaan leeyahay waxaad noqoteen kuwo shaqadii loo soo doortay garab maray ama isku wada qaatay inay wada yihiin mayor. dhacdadii shalay hore ka dhacday dowladda hoose ee boorama waxa uu marmay maayarkii barsaabka wuxuu sheegay maayarku barsaabku waxa uu marmay golihii deegaanka iyo barsaabka ha wada marmaane shaqada ka baxsan ee meesha lagu wada hadlay haba se ahaatee waxaa la isweydiinayaa barsaabku golaha deegaanka uu kala tiri karaa mise ma kala tiri karo shaqada loo sii awoodaan male madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland ma kala tiri karaa سوى إن صوبك عبر هذا الناظر ولا صدرت عد كهيجي وكفر يا مش عد كوزيرين مدحونا فيه أي ونحن اللي بنقيه شغل يسوي لي يوم الرول كي صدرته أنت كبر شو هو بدو المناسبة هي كولي خذوك سي صوبه بحمد الله مسؤول واحد جريء إن برصاب كله بدريمه والله مسؤول قرنبوها ما أنت يدي سقور بدريمه يعني ما أنت هو اللي دريمه ما أنت أقول لك واحد حياة مش شقية ما حينفعيه والله يقام لكن دور تطلب من واحد راعي هذا أنا سويت سجل أرجع سير كذي نقص يومي ولا سنة لكن وقت شيء إن صلما ورن كراينا بلا منتهي حول أذك ما دام كله تيجان كي برستار كي أي مرن كو إنه بلا منتهي صلما ورن كراينا وبركة سويتشي تمدون هذه وحلقة تبوي والله تصوير واحد حل بعنا هو ورقها أروح شقيق الرأي مو شقيق أنا هو واحد دور اللي جار حياتك مثل قولت لي مرة دور قولي هيدا كانوا دور نعملوا إلى معمولات دجمدل وما تكلم حسابنا إنت روح ودينا ما جرت هذا شغله anigoo ka hadlaya arrinkii shalay inta dawladda hoose ka dhacay seminaarka xildhibaanada loo qabanayay waxaan aad iyo aad uga xumaaday in xildhibaanadii degmada boorama iyo barasabka gobolka uu ka dhaco nidaam darro iyo isfaham leh anigu fikriyan saan u arko kolley waa nidaam darro in ka mid ah nidaam darrada xasbiga kulmiye iyo dawladda madaxweyne siiraayin uu hogaamiyay وشانتنا الصنبة قبل كأوضل أي كتير تيس فهموا حاجة الدولة ده يو كلها ديجان الدمر البول أنا هو حمار كي شري نظام دركة من ده حاجة براسها وياه براسها وبراسها في الجوار يقولون هو قريه ديجان والدمر الوسط لين ما يقولها ديجان إني قديه لكن هو حنقرة خارية براسها في الجوار sababtoo waxa weeye marka golaha deegaanka la hadlo markan waa niman la soo doortay doorashada gobolka ku yimid degmada ku yimid doorashada way ku tagay sanadka laakiin waxa weeye in marka dadkan wax u sheeg isleedahay ad si gaar ah wax ugu sheeg iyadoo saxaafadii joogto ayuu wax u sheegay waa qalad marka qaladkaasi waa nidaam darro ka jirta xukuumadda taagta daran ee madaxweyne Sigraayi uu hogaamiyo كمان وين كتير تها قبل هذا Somaliland أورا من لاس عنود إلى لو يعدل والنظام ده هذي أمره وجه هذا من بيتنا كم تهاي برا كهنا إسكال النظام ده هذا عشري ده عشري مش كده من برا كان تشوفه ثوري سؤال شان كويدين واحد هاي برا محمد سليمان رمح
awood iyo u leeyahay inuu kala diro golaha deegaanka iyo degmada Boorama ما شقق ملا يسووا برا صاب أول ما ملها إنه كلا درو كريه وحويان السنة قبل كان الله إبن لكن كلا درب شقق ملا قولها ديجان كوحة كلا درب كان مدحوينها جمهورية الصومالية إن كان يمكن حلك هاي السيران إيوه ديشان كل موقف أو كرسوني كلا لابطة قولها ديجان كده مدحوين لكن wax kala diri karo iyo awoodahaas midna ma laha danka kale wuxuu barasab ku dhawaaqay shalay lahaa mar waa hadaladiisa ka soo yeeriyay inuu ka joojinayo mishaaraadkii ay ka qaadeen dawladda awood ma gudahay inuu mishaaraadka ka joojinayo uma maayaan inuu barasab awood noocaas leeyahay meel uu ka keenay garan maayo hadduna ama madaxweyne yahay way tireen niman badan oo halkan madaxweynayaal sheeganayo barasabka hore kamid ah oo madaxweynaha in adeerkay iyo beeshiisaan hayla inkastoo xukuumadda meel ku dhisan tahay ee qabi oo nimankan xagan ka yimaaday wax kale ay la soo baxeen way jireen barasaabiyo wadanka Soomaaliya Allah u naxariistay xildhibaankii golaha ee wakiilada afweyne barasaabka gobolka Ceelgaabo cid ka caawin Suuriyeed ma halka rag baa ka weligeed barasaab laga caawiyo labada barasaabkii hore tagay iyo kan maanta uma markayna oo xukuumadani wakiilada gobolka لكن ما إنه مشاركة شركة مشاركة حق الأولي عد كشركة مدحوينها أنا شركة فلحد شركة على الدولة هو شيء كسر كانت أنت الميزانية ده يهنجباد برصاب رماح لأن أنت أصلا سيد ورقة وقرارات كان شيء يو لما بقى كاشري دولة هو شيء كدعي وها إسكره ودوش أنكسر مع نقطة هاي سياسيين تقولك برصاب تقولك سياسي sidoo kale la isma oran karo iyadoo markii hore xaalad siyaasadeed ay ka taaganta gobolka Awdal inuu si xumaynayso hinjabada barasabku xaalad siyaasadeed ka taagnayd gobolka aad waxa weey dhamaan gobolka nimanka loo soo diray waa niman layliga oo ku cusub saaxadda siyaasadda waxaan maraynayaa rabaa inuu 5 sano ee Soomaaliland ay jirto 5 sano ee xukuumadda ku jirto وحل بقط سامر كي مكها والليلي والسياسة الليلي إنه كانوا واحد قبل كلاي من يعني نمن ما ملك يقانه أو شقية إنه يحمي سياي وصل ماذا هيقول أنا قبل دي سؤال شان مدينة واحد هاي دولة هوسية دولة بورما حلقوا لين أنا كوفش لنتي السياسة يكون مأمين هاي دولة بورما هي كالفر الآن هي أنشأنتي ميزانية أو سدول كلا iyo xisaab xirkii labadii sano u dambeeyay oo aan ilaa iyo haatan la hordhigin taasi soo uma muuqato in degmadii Boorama horumarkeedu uu kobcayo hasaahati maamulka ay ka jirto aad iyo halka hadaan tii ku noqdo horta maamulka way jirtaa haday golo deegaan tahay iyo haday heer gobol tahay golaha deegaanka laftoodu waa niman aanan wada socon oo kala socda anu waxaan kula talin lahaa anu kullu musharax golaha deegaanka oo ka sameeyay waxaan hami baan lahaa waxbaan hiisanay waxaan hiisanay u ahaa inaan wax hagaajino ka dhalinyar ahaan waxaan kula talinayaa inay ka midoobaan danta degmada Boorama si wax u qaban lahaayeen bismillaah kulli anu waxaan fikir ahaanteeda aaminsanahay wixii aan xalay daawanayay ka dhacay magaalada Boorama golaha deegaanka iyo governorka magaalada Boorama rasaabka magaalada Boorama hortani arintaasi waxa ahayd xaqiiqo marka laga hadlayo arin aad iyo aad looga naxo waayo mas'uuliyiintii gobolka oo xoogay jaafa jiriq iyo isku horimaad farxan u dhaxyaalo horta waa mid oo marka uu leeyahay maamul daadajin iyo waxaan u sameynaynaa waxa la barayaa xeerasha iyo anshaxa nidaamka ee dawladaha oo shaqeeyaan ma xumo laakiin mid baa taala qaabkan uu la dhaqmayo waa mid ka baxsan itigiskii dawladnimo maadaama uu yahay isagu hormuudkii gobolka waxaan taa rasalahayn dib ku dhigayaa inuu isagu si gaar ah oo without media ah la kulmo wuxuu doonayaa inuu sheegayo arintan waa mid fadaxad ah markii xalay la daawaday iyaga oo isla wada sara kacay waa mid runtii dadka magaalada Boorama aad uga xumaadeen waxaan leeyahay isagu hadii ha soo noqdo hana wuxuu doonayo golaha deegaanka si gaar ah ugu sheego oo aan ahayn qaabkan uu la dhaqmayo
fikirkaasaan aaminsanay awood muu leeyahay barasaab ramaax inuu kala diro golaha deegaanka degmada boorama ma malaynayo haddii uu jiro isagu xeerar hoosaade uu jeebka la soo baxayo kala diritaanku midun baan odhan karaa isagu haddii uu awood leeyahay inuu seego waxay awood ugu leeyahay uu ku kala dirayo laakiin isqabsi iyo maamul baan baraynaa dee qofna xilligama qaadi karo haddii shaqo xumo jirto dee shaqo toosin baa meesha imanaysa in kala toosiyo laakiin xil baan kaa qaadaya salariga iyo waxaad insha Allah haydeen baan idinka jaraynaa uma arkayo runtii inay tahay arrintaasi arrin fiican wuxuuna isagu xaq u leeyahay inuu u sheego meesha ay sirtu ka qoransan tahay inuu u sheego ka bacdina taliyo toosin iyo mudnaanteedana uu maro laakiin hanjabada noocan oo kale ah waxaan lahayn kuma qurux badna inuu su'aasha kala gudiina xataa fadeexadii shalay ka dhacday dawladda hoose shakhsi ahaan iyo shacbi ahaanba idinku sidoo aragtaa shacab ahaan anigoo kamid ah waxa weeye qoyaanka gobolka Awdal waxaan u arkayaa kulli fikir ahaanteeda inaanay wanaagsanayn waayo dadkani hormuud bay role model bay noo yihiin annaga haddii aanu aragno dadkii waxa weeye gobolka ugu sarreeyay oo caynkaasi iskaga soo horjeeda marka waxay muujinaysaa inaan meesha wax maamul ama runtii qaabkan ay u wadaan uu khaldan yahay fikirkaasaan aaminsanay marka shacabka qudwad u tihiin hagaajiya baan leenahay maamulkiina toosiyana dadkuna haydan ku daydaan iyadoo adoo kamid ah aqoon-yahanada gobolka Awdal iyadoo ay ka jirto gobolka Awdal xaalad siyaasadeed oo qasan soo lama oran karo hawsha shalay oo kale barasaabku hawlahan wado waxay sii qasaysaa xaaladda siyaasadeed gobolka Awdal ka taagnay marka horeba tirad baa jiriyo gobolka sidiisaba farta loogu fiiqay oo xagga amniga marka laga hadlo arrintan waxa weeye barasaabku shalay kula kulmay holka dawladda hoose arrin ay seminar workshop loo qabanayay runtii haddii marka hore joog fiican ku bilaabi lahaa waxbedel fiican oo isbedel ayaa ku iman lahaa man qabaa waxa weeye baarlamaanka ama local councilka cidda marka xildhibaanada ah laakiin haddii hanjabaadi ay horna noqoto waxa meesha ka imanayso filanaan in wax weyn yahay baan malan